maxaa ugu dambeeyay Afghanistan xasan wardagdag oo haatan soo gaarana waxa uu sheegaya in madaxweynihii hore Afghanistan Ashraf Ghani uu haatan ka degay magaalada dalka Imaaraadka Carabta wasaaradda arrimaha dibadda ee Imaaraadka Carabtuna waxay sheegtay in madaxweyne Ashraf Ghani uu soo gaaray dalkaasi ayna u fidiyeen soo dhaweyn maadaama arrimo bini'aadanimo awgeed ay ugu soo dhaweynayaan saas awgeed ayay sheegtay wasaaraddu waxayna sheegtay inuu halkaasi ku noolaani doono madaxweynahaasi Ashraf Ghani oo axadii ka cararay dalka Afghanistan wararka kalena waxay sheegayaan in jahwareer iyo qalalaas uu ka taagan yahay weli gegida diyaaradaha ee Kabul kadib markii dowladaha midowga Yurub ka mid ah ay kala baxayaan dadkooda sida Faransiiska Jarmalka dalka Czech iyo sidoo kale dalka Holland ay ka baxeen diyaarado dadkooda sida caasimada ama garoonka diyaaradaha ee caasimada Kabul saacadii ugu dambeeyay shaqaalaha safaaradda Hollandna waxay sheegeen in ay ku noqotay wax ma aragtay la yaab leh markii ay arkeen in Kabul ay la wareegtay Taliban xasan wararka dheeraadka ka soo baxaya mudaharaadka ka socdo magaalada Jalalabadna ee bariga Afghanistan waxay sheegayaan ama muuqaal lagu baahiyay baraha bulshada waxa laga maqlay dhawaaqa rasaas la ridayay oo dadka lagu kala eriyay dabadbaxayaasha ayaa lagu arkay wadooyinka Jalalabad iyagoo lulaya calanka qaranka dalka Afghanistan ka hor intaan la maqlin jug weyn oo dadka ay ka kala carareen waayahay ciise marka dadku maxay ka dibadbaxayaan mudaharaadadan ayaa daba socda warar sheegaya ama banaanbaxyo kala duwan oo shalay ka dhaceen deegaano kale ee ka tirsan dalkaasi oo looga soo horjeedo in calanka dalkaasi ay bedelaan kooxda Taliban sida la ogyahay midabada uu leeyahay dalkaasi calankiisu waa madow jaalla iyo sidoo kale gaduud marka waxay diidayaan in la bedelo calankaasi oo mid cad oo Taliban xardha ay ku qoreen kelimada diiniyan ah ama kelimada ay ku qoreen ayaa ka muuqda calankooda Taliban marka markii horeysana xasan wararka waxay sheegayaan in madaxweyne Joe Biden iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Boris Johnson ay ka wada hadleen arinta Afghanistan ee sheegeen in sida ugu dhaqsiyaha badan ay iska kaashan doonaan sidii lagu soo daabul lahaa dadkii ka caawiyay dalalkooda Afghanistan markay duulaanka ku galeen sida turjumaanada iyo dadkii qandaraasyaasha ah ay ka shaqeynaya dalkaas oo haatan laga cabsi qabo in Taliban ay bartilmaameedsadaan qaramada midoobay waxay sheegtay in ay kala hadashay Taliban in ay u furaan wadooyinka si howlaha gargaar iyo bini'aadanimo ay u gaarsiiyaan gobolada ay aadka u saameeyeen dagaaladu iyo sidoo kale in maaragtay iskoolada iyo waxbarashada iyo howladii ay UNHCR ay ka baday dalkaasi ay sidii ahayeen isu socdaan gaar ahaan waxbarashada dumarka oo ay haatan ay saarayaan diiradda marka markii horeysay afayeenka ururka Taliban oo shalay galinka dambe shir jaraa'id qabtay waxa uu sheegay in dalka Afghanistan aanan loo isticmaali doonin xarun ama goob lagaga duulo dalalka kale taasoo xaqiijin isagoo ka jawaabaya baqdinta laga qabo in mar kale dalkaasi uu hoy u noqdo dagaalyahanada Al-Qaacida Zabubillah Mujahid waxa uu sidoo kale sheegay in beesha caalamka ay u xaqiijinayaan dalka Afghanistan uu noqon doono sida dalalka kale ee caalamka oo xiriir wada yeelan doonaan isagoo arintaasi ka hadlaya nin ka mid ah Ubaydullah Bahdir la yiraahdo oo wax ka dhiga jaamacadda Mareykanka ee Kabul ayaa waxa uu sheegay in ay tahay arin ku cusub ayaga markay maqleen in Taliban oo ka hadlay in dalkaasi ay soo noqon doonaan goob laga soo duulo martan waxa uu yiri It was nothing we hadn't heard before. These are statements that were given by ma ahayn wax aan horay u maqli jirnay warkan ay horay u bixiyeen xubnaha kale ee Taliban ka tirsan waagii Suhayl Shaain hase ahaatee waa wax wanaagsan in waxyaabahaas aan mar kale maqalno kadib markii Taliban ay xukunka la wareegeen balse waxaana soo gaaraya warar iskhilaafsan magaalada Ghazni Taliban waxa ay amar ku bixiyeen in shaqaalaha dawladda ay shaqooyinkoodii ku soo laabtaan waxaan u malaynayaa in ay yareeyeen mushaarkii waxayna kala xirxireen xafiisyada dhexdooda si ay shaqaalaha ugu kala saaraan lab iyo dhadig codkaasi waxa uu ugu dambeeyay warbixintii la xiriirtay arrimaha Afghanistan oo noo soo koobayay Ciise Xaji Cabdulle isla wararka Afghanistan ayaynu ku jirnay xukuumadda UK ayaa waxa ay ballan qaaday in kumanaan qaxooti reer Afghanistan ah ay magangelyo ka siinayso dalkeeda kuwaasi oo ka qaxay dalkaasi kadib markii ay Taliban qabsadeen qorshaha cusub ayaa ah in 20,000 oo qof oo reer Afghanistan ah dib u dejin looga sameeyo wadanka Ingiriiska dhowrka sano ee soo socda Cabdiraxmaan ayaa warbixintan London ka soo diray
baarlamaanka dalkan ingiriiska ayaa waxaa la isugu badheeray dood adag oo ku saabsan waxa ka dhacay afghanistan iyadoo aynu ognahay in afghanistan ay la wareegan taalibaanku ayaa tani waxay ahayd mid aan fariir ku noqotay siyaasiyiin badan oo ingiriis ah iyadoo la filayey in aanay arrimuhu dhicin sida ay hadda u dhaceen waxaana qaar badan u haysteen in halkaasi ciidamada reer galbeedku ay ayar uga bixi doonaan ilaa bisha soo socota islamarkaasina la gaari doono xal siyaasadeed oo laga gaarayo arrimaha afghanistan sidee doontaba haatee ra-iisul wasaaraha dalkan ingiriiska boris johnson ayaa markii yimi baarlamaanka waxaa lagu boobay su-aalo adag iyo dhaleecayn ballaadhan oo ka imanaysa gaar ahaan xagga xisbiyadda mucaaridka hogaamiyaha xisbiga ugu weyn ee shaqaalaha Keir Starmer ayaa waxa uu sheegay isagu in ay jirtay buuri inay ahayd 7 buuri ay dhacday fashilaad weyni oo ku dhacday siyaasadda reer galbeedka waxaa kaloo uu sheegay Keir Starmer inay taasi keentay buuri inaan si fiican loogu diyaar garoobin waxa ka dhacay Afghanistan waxaa kaloo iguna ka hadlay xisbiga kale ee SNP Scottishka go'aansada waxaana ay sheegeen in Scotland laga soo dhaweyn doono qaxoontiga Afghanistan ka imanaya meesha doonana ka yimaadaan waxaa kaloo intaas iguna ku dareen in dalkan Ingiriiska iyo reer galbeedka ay ku dhacday dhibaato weyn oo xaggi isku halaanshihii ay dadku isku haleynayeen inay u gargaari doonaan xisbiga kale isaguna liberal democrats ka leeyahay ee dalkan ingiriiska ayaa isaguna hogaamiyahoodu sheegay inaan sidii la rabay loogu diyaar garoobin sidee doonto waxa noqotay waxaad moodaa in dad badan ay aad u dhaleecaynayaan waxyaabaha dhacaya iyadoo dawladda ingiriiskuna ay ku dhawaaqday in 20,000 oo qaxoontiga Afghanistan ah ay dib u dejin doonaan dalkan dadka aad u dhaleeceeyay dawladda xitaa waxa kamid ah hogaamiye hore oo xisbigaasi ka tirsan hogaankiisa oo u tartamay inuu noqdo gudoomiyahana mar waa David Davis waxaana uu sheegay inaan dawladdu waxay samaysay aanay ahayn wixii loo baahnaa markaad eegto laakiinse wasiirka arrimaha gudaha Priti Patel ayaa iyadu sheegtay in dawladdu ay rabto inay dad badan oo qaxoontigaasi ay nidaam u samayso ay ku soo degi karayaan halkan oo ay dadkaasi Afghanistan ugu gargaarayaan. We have announced today this